daawadayaal ku soo dhawaada channelka Qaalin Media. Maanta waxaan diiradda saaraynaa laacibka weynaa ee Mohamed Salah iyo xaaladda uu maalmahan ku sugan yahay. Wargeyska Ingiriiska ayaa banaanka soo dhigay oo isweydiinaya su'aal ah heerka laacibtinimo ee Mohamed Salah ma dib buu u dhacay ama maya. Gaar ahaan wargeyska la yiraahdo Sky Sports ayaa isweydiiyay laacibtinimada Mohamed Salah ma dib bay u dhacday sababtoo ah ciyaartii ugu dambeysay oo xalay ciyaaray goolna muu sameynin dhigitaanna muu sameynin ma sabab kale ayaa jirta ama mustawihiisa heerkiisa laacibtinimo ayaa Mohamed Salah dib u dhacday. Wargeyskana asagoo hadalkiisa sii wato wuxuu kaga jawaabay in ay sababta tahay in labada laacib ee saaxiibka la ah Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Luis Diaz, in aysan waxba kubad ah ee laacibka u dhigaynin ee iska indhatirayaan. Waxayna tilmaamtay wargeyska Sky News uu sii tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyay dib u dhac uu ku yimaaday labada laacib Sadio Mane iyo Luis Diaz iyo Mohamed Salah inay isweydaarsadaan kubada ee isku baasayaan, weliba gaar ahaan labadooda in ay baas ay siiyaan Mohamed Salah, taas oo ku kaliftay Mohamed Salah laftirkiisa maadaama uusan baas helaynin in kubadaha dhaadheer oo asxaabtiisa kale ee weerarka ah uu u dhigo, taas oo laacibku ku sababtay in uu noqdo qof ciyaar sameeyo ah halka uu ka ahaa bariga hore dhaliye. Taasna waxay keentay in uu ka fogaado goobta dhalinta oo weerarka ah oo qad dhexe imaado, iyadoo markaas ku kaliftay in uu baas bixiyo mar walba. Geeska Sky News halka kagamuu harin warkiisa, bal sidoo kale wuxuu xooga saaray in uu waajib iska saaro tababaraha Jurgen Klopp in uu arrintan faragelin ku sameeyo, maxaa yeelay arrintan waxay sababtay in heerka ciyaareed ee kooxda Liverpool ee dib u dhacdo, iyadoo laga daawan karayay ciyaarta xalay dhacday ee kaga soo horjeedeen kooxda Tottenham. Taasna ay ku sababtay dhibic inay halka ku waayaan oo hadda ku sii socotana ku sababi doonto kooxda inay ka harto kaalmaha sare ee koobabka ay ku jirto. Intaa waxaa sii dheer uu wargeyska sheegay in Harry Kane uu taageerayo Liverpool ama uu taageero u yahay Mohamed Salah marka ay xalay bareejaha galeen ama barbardhaca ay noqdeen labada koox. Harry Kane wuxuu muujiyay uu shucuurtiisa soo saaray inuu aad iyo aad oo xal u faraxsanaa marka ay kooxdiisa dadaashay, sidoo kalena dhibic ay halka kaga qaateen barbardhaca ay la galeen Liverpool. Laacibka asagoo wargeyska la hadlayay ciyaarta kadib markay dhamaatay wuxuu yiraahday aad baan ugu faraxsanahay caawa in aan dhibic aan ka qaadano kooxda Liverpool maadaama ay koox adag ay yihiin, sidoo kalena Liverpool aad ayay u wanaagsanaayeen ciyaartana ciyaar wanaagana way noogu sareeyeen weerar iyo baasba, laakiin kooxdeena dadaal ayay sameeyeen. ciyaaraha noocaasna waa lagu yaqaanaa Ingiriiska, kadibna waxa weeyaan waa ka daba imaanay dhibicna waan ka qaadanay. Mar laga wareysanay nasiibka rajada ay ka leeyihiin Tottenham inay ku guuleystaan horyaalka Ingiriiska ayuu wuxuu yiraahday Harry Kane ciyaar fara badan ayaana sugaysa. Sidaad ogtiina horyaalka Ingiriiska qofka guusha kuma helo ilaa ciyaarta ugu dambeyso oo ciyaaro, halkaas ayaa lagu kala baxaa. Sida awgeeda waxaa iska dhici karto xil walba inay arrinta iskala rogto ama anaga aan noqono dadka ugu sareeyay horyaalkan. Laacibka Harry Kane inuu yiraahday waxaan u mahadnaqayaa Mohamed Salah iyo kooxdiisa, waxaana hubaa in ay wax isbedel aad u weyn ay sameyn karayaan haddii dadaalkooda ay sii kordhiyaan ay sii laba jibaaraan ee mar labaad ku guuleysan karaan koob kale. Ee wargeyska wuxuu waxay tahay in tababaraha Guardiola uu taageerayo Mohamed Salah ka hor inta aysan dhicin ciyaarta ee kaga hor imaanaysa Liverpool Real Madrid. Wuxuu cadeeyay tababaraha Spain ee Guardiola in uu kooxdiisa ku guuldareysatay in Real Madrid ka badiso, sababtoo ah wuxuu cadeeyay tababaraha Spain ee Guardiola agaasimaha farsamada Manchester City ah in ay kooxdiisa ku guuldareysatay in ay iska dhiciso ama ay ka hor imaado kooxda Real Madrid, asagoo oo maamuli kari waayay ciyaarta halka ay u socoto marka ay hal gool ay kaga hormareen
Real Madrid. Isagoo hadalkiisa siinaya wargeyska Sky Sports ayuu wuxuu yidhaahday ilaa ay xataa ma aamini karayo ma rumaysan karayo sida waxaan ugu dhacay anaga ayaan ahayn intii ugu horeysay ilaa ay daqiiqadaha ugu dambeeyay dadka gacan sareynta leh ciyaarta intay socotay ee Real Madrid aan la ciyaaraynay laakiin ma garanaya haddana anagoo 2 gool kaga sareeday ee aan haysanay koox ciyaartoo dhan gacanta aan ku haysanay in haddana nagala badiyay laakiin waxaan u aaneynayaa kooxdeeda oo sababtoo ah siisay kalsooni aad u ballaaran eena doonaysa ciyaaro fara badan iyadoo ka qayb galaysa in ay hore u socoto culayskii pressure-ka ka qaada dhankan ay hadda maanta ay taagneed ee ka ciyaaraysay taas baan u aaneyn karayaa guusha nagala guulaystay markaan u jaraacnana tababaraha su'aal mar la weydiiyey maxay kula tahay ama aad filaysaa Real Madrid iyo Liverpool hadday iska hor imaadaan cidda guulaysanayso wuxuu ku jawaabay waxaan u maleynayaa Liverpool in ay badin doonto sababtoo ah waxyaabo fara badan ee u saamaxaya ayay haysataa hadday tahay لاعبinta dhalinyarada ah ee faraha badan oo ay ka mid yihiin Mohamed Salah iyo Sadio Mane iyo laacibin kale iyo sidoo kale iyadoo oo Argosy u haysa kooxda Real Madrid waxyaabahaas oo dhan ayaa sababi karaya in ay ka guulaysato Mohamed Salah weli aad u daran yahay maxaa yeelay Argosy buu socdaa sida la yeelay sanadkii hore in uu dib ciyaarta wax kaga bedelo iyo tan kale waxaaba ku muujinaysa ciyaarta guulaysa ee kuwa kulmaan Real Madrid iyo Liverpool ayaaba wacdara loo dhigay Real Madrid tan kalena waxay tahay Liverpool inay ka faa'iideysan doonaan anaga jabka ugu dhacay ee taa faa'iido u noqon doonto badiskoodana ay ku helayaan laacibka Faransiiska ee Karim Benzema ee u ciyaaro kooxda Spain ee Liverpool ayaa wuxuu ka jawaabay hadal uu soo dhigay Twitterkiisa xidiga Liverpool ee Mohamed Salah mar ay ka badiyeen Real Madrid kooxda Manchester City waana u soo baxeen wareegga sare ee Championka Europe ayuu wuxuu yiraahday Liverpool waa Real Madrid waan sugeynaa xisaab ayaa inoogu dhiman in aan ka jarno ee tahay laacibka Benzema hadalkiisa wuxuu ahaa Mohamed Salah waan garanayaa hadalkan wuxuu ula jeedo wuxuu doonayaa kooxdiisa inuu dhiirigelin siiyo inta aan ciyaarteena la gaarinba ciyaarahan oo kale sanadkii hore ayaan iskaga hor imaanay Championka Europe ah waana ka guulaysanay xaq ayuu u leeyahay in uu dhiirigeliyo kooxdiisa si ay markaan u raadshaan guul waa xidiga koowaad ee kooxdiisa ee ku dhisan tahay Liverpool dadkana waxay ka dhigayaan hadalkan Salah uu soo qoray in uu anaga naga soo horjeedo maadaama Real Madrid aan ahay ama inay naga dhaxayso xifaaltan waliba aniga gaar ahaan laakiin ma ahe waxa waaye xaq buu u leeyahay in uu sidaa yiraahdo oo kooxdiisa dhiirigeliyo xaqdana waxay tahay in aniga oo Karim Benzema ah aan doonayo inaan guulaysto aan koobka ku guulaysto sida Mohamed Salah uu rabo aniga iyo kooxdeedaba inaan guulaysano taasna waxa weeyaan waan u taaganahay kooxdeedana waxa weeyaan diyaar ay u tahay Guardiola hadaa u soo noqono mar ee laga wareysto guuldaradiisa ayuu wuxuu yiraahday mid aan filayay ma aha ciyaartana anaga ayaa gacan sareeyay hadii la weydiiyo qof kasta ee daawada ahaa ee ciyaarta daawanayay inta ugu badneedba anaga ayaa controleynay laakiin waxaan waa iska nasiib marka waxa weey mid aan filanayna ma aha waa jab aan filaynin ayuu ahaa oo sii watana wuxuu yiri goolka labaad markuu Mahrez dhaliyay ciyaartoo dhan waa siinay waxaana u qaadanay in aan badinayno isbedelo far badan ayaan sameeyay aan loo baahnayn tanna waxay ku tusaysaa in aan ciyaaraha European Championska aan lagu tirsan kareynin waqti iyo sareen ee tahay arin mucjiso ah mar walba Real Madridna way istaahilaan in ay naga badiyaan maxaa yeelay sida anagaba xaq aan u lahayn inaan badino laakiin meeshaas waxaan ka arki kareynaa in Real Madrid naga
jeclaan badnaayeen inay koobkan ku guulaystaan eena naga dhiiranaayeen